25 bishii tagtay ee Febraayo kadib duulaankii xoogganaa ee uu Ruushku ku qaaday dalka dariska ay yihiin ee Ukraine ayaa waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan dadkii malaayiinta qof ahaa ee ka qaxay dalka Ukraine sida kala duwan oo ay dalalka qaaradda Yurub u qaabileen dadkaasi. Wararka naga soo gaaraya xadka u dhaxeeya dalalka Poland iyo Ukraine ayaa xaqiijinaya in xadkaasi uu ka dhacay xadgudub ka dhana xuquuqda aadanaha kadib markii dadka asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika iyo sidoo kale dalka Hindiya lagula kacay takoor iyo faquuq ka duwan soo dhaweyntii loo sameeyay dadka caddaanka ah. Muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya in dadka madowga ah iyo dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya loo diiday inay gudaha dalka Poland galaan iyadoo laga kala tuurayay lagana riixayay goobta dadku ay ka galayeen dalka Poland iyadoo dadka caddaanka ah ee xagga shisho taagana la soo dhaweynayay. Tallaabadan ayay hay'adaha caalamiga ah gaar ahaan kuwa xuquuqda aadanuhu ku tilmaameen xadgudub ka dhana iyo tacaddi xuquuqda aadanaha iyo wada noolaanshaha bini'aadamka. Arrintan ayaa sida la soo warinaya waxaa ku kacay qaar ka mid ah booliiska dalka Poland gaar ahaan kuwa ka howlgala xadka u dhaxeeya dalalka Ukraine iyo dalkaasi Poland. Ma jirto ilaahay iyo haatan warbixin ku aadan arrintan oo ka soo baxday ama ay soo saartay dowladda Poland oo ay uga hadlayso tacaddigan lagu tilmaamay inay ku kaceen qaar ka mid ciidamada booliiska dalkaasi Poland. Ciidamada dalkaasi Ruushka gaar ahaan booliiska magaalo xeebeedka St. Petersburg ayaa habeennimadii Arbacada oo ay Khamiistuu soo galaysay waxay xabsiga u taxaabeen qaar ka mid ah dibadbaxayaal dibadbax ka dhigayay caasimadda St. Petersburg. Dibadbaxayaashan oo aad u caraysnaa ayaa ka soo horjeeday isla markaana ku dhawaaqayay ereyo ka dhana duulaankii dhowaan Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine. Warbaahinta ayaa muuqaalo ka soo gudbisay ciidamada oo dhulka ku jiidaya qaar ka mid ah dibadbaxayaasha xabsigana loo taxaabayo. Dhanka kale madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ahna maalqabeenka ka soo jeeda dalka Ruushka Roman Abramovich ayaa maanta Arbacada waxay warbaahinta Ingiriisku daabacday inuu doonayo inuu iska iibiyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Tallaabadan ayaa timid sida warbaahintu ay falanqaynayaan kadib cadaadis uga yimid qaraarkii dhowaan ay saxiixeen dowladda Mareykanka iyo dowladaha qaaradda Yurub inta badan kaasoo ahaa qaraar ka dhana in cunaqabatayn dhanka maaliyadda iyo socdaalka la saari karo muwaadiniinta ka soo jeeda dalka Ruushka iyadoo looga jawaabayo duulaankii galdarrada ahayd ee Ruushku dhowaan ku qaaday dalkaasi Ukraine. We and our allies and partners are launching a task force